hawshan wanaagsan ay haysaan waa hawl runtii mustaqbalka carruurteen wax u taraysa kulligeenba waana wax idinkeena ka bilowday waana wax waddankan hore loogu dhisay aanu dib ugu dhiseenno marka annagoona cidna sugin shisheeye aan raadsan inaan anagu dib u dhisanno oo qof alla qof kasta oo Soomaali wuxuu gelin karo waqti xoog xoolo inaan gashanno oo aanan cidna ku tashan oo aan isku tashanno saas maaha waxaan aaminsanahay haddaan xooggeena sugayno oo aan mideenno dalka meel kasta oo burbur gaaray inaan dib u dhisan karno iyo weliba meelo cusub inaan anagu dhisi karno hadday noqoto goobihii caafimaadka hadday noqoto goobihii waxbarashada hadday noqoto jidadkii meel walbaba annagu inaan gacmaheena ku dhisanayno oo aan cidna sugaynin xooggii waa haynaa xigmaddeedii iyo caqligeedii waa haysaan waxa naga dhiman oo keliya waxa weeye inaan kacno oo aan istaagno oo aan hawshii qabanno keliya naga dhiman haddaan intaas isku raacno oo aad u midowdaan waxa xaqiiqo ah muqdisho ay noqonayso iyo meel kastaba haddii xoogga dadka ay geliyaan meelaha ugu wanaagsan meelaha ugu quruxda badan meelaha ugu bilicsan inay noqon karaan waxa naga xiga oo keliya inaan u soo istaagno annagoo midaysan xooggeenaan gelinno qorraxdaasaan u istaagno intaas yay burbursanayd meeshaan meeqa sano 30 sano ku dhowaad ma cid baa idin timid oo idin dhistay idinkaa dhisana idinkaa laydinka rabaa haddaad 30 sano kale sugtaanna cid idin dhisaysa ma laha intaan keliya maaha iskuullada burburay hay-adaha kale dowladda burburay jidadka burbursan wax walba annagaana laga rabaa idinkaa laydinka rabaa maxaa yeelay waa wax naga wada dhexeeya kulligeen waa waxaan wada leennahay haddaan wada leennahayna qof walba waa inuu xooggiisa geliyo waa inuu qof walba xoolihiisa geliyo waa inaan kulligeen annagoo wada soconna oo midaysan aan u shaqayno dalkan carruurteenna aan u shaqayno waa kuwaan halkan jooga carruurtooda mustaqbalkooda aan u shaqayno waxa laga rabana waa annaga wey annaga hadda joognaa jiil walba marka ay joogaan yaa laga rabaa inay hawshaasi isu xilqaamaan oo saas ugu xilqaanteen idinka si jiilka soo socda ugu diyaariyaan mustaqbal wanaagsan meeshaan waxaan rajaynaynaa insha allah maktabaddan muddo yar gudaheeda inay noqoto meel dhalinyarada kulli ay yimaadaan oo ay buugta ku akhristaan hadduu ilaah yidhaahdo allah ajar iyo xasanaad idinka siiyo waa idinkula jirnaa waa idinla soconnaa waa idinla shaqaynaynaa ardada Soomaaliyeed runtii caddadoodu waa 70% haddii 70% hal saac ay geliyaan usbuucaas dalkan si degdeg ah loo dhisi karaa burburkii ku yimid dalkan si degdeg ah yuu uga kaban karaa insha allah waa dadaalaynaa waa idin garab taagannahay saan idiin sheegnay waan idinla shaqaynaynaa waan idinku hogaaminaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi